دايره محربتها khadka oo naga go'ay daraadeed dib baan ugu soo noqonay mar labaad khadka waxaan ku codsanaynaa dadweynaha na daawanaya inay sii sheergareeyaan mar labaad waayo khadka ayaa naga go'ay waxaan jecelnahay ilaa kowda galabnimo inaan idinla joogno oo aan runtii aan tabino live waa mudaharaadkii ka socda magaalada Darmstadt waxaan jecelahay inaad sii sheer garaysaan si ay u gaaro dad fara badan waayo qadka ayaa naga daciifay nagu go'ay laakiin mar labaad ayaan ku soo noqonay waa tahay hadda dadku waxa ay u sii socdaan oo ay ku kacayaan dhinacaas iyo Regira Presidiumka sida la filayo Soomaali male
dib ayaan u qaadanaynaa mudaharaadka inaynu soo tabinno waxaan ogeysiinaynaa in hadda dadka faraha badan ay ka qayb qaadanaya mudaharaadka sida tooska aynu ugu soo tabinayno baraha bulshada ay hadda ku sii jeedaan dhinaca iyo Regieren Presidium oo ah meesha ay dawladdu ka degan tahay magaalada Darmstadt horena dadku waxay u soo mareen Ausländerbehörde ama laanta dalku jooga dad fara badan oo aan la filayn runtii inay isku soo baxaan oo boqolaal qof dhan ayaa maanta ka qayb qaatay oo ka soo qayb galay mudaharaadkan runtiina lama filaan ayay ku noqotay qabanqaabiyayaashii qabanqaabinayay mudaharaadkan oo aan ku tali gelin ama aan uga baran magaalada Darmstadt nawaaxigeeda gaar ahaan Darmstadt, Frankfurt iyo Hessen guud ahaan iyo inta ay maamusha magaalada Darmstadt inay mudaharaad intaan leeg ay isugu yimaadaan Soomaaliinta tiro leeg waxayna noqotay runtii guul weyn oo wax badan ka bedeli doonta sawirkii laga haystay Soomaalida oo ay muujiyeen maanta quwadooda iyo inta ay faraleegiin waxayna noqotay guul weyn runtii qabanqaabiyayaasha hambariyo ayaan leenahay iyo ururka Somali Community Service mudane Kamaal oo soo qabanqaabiyay oo aad u mahadsan oo markii ugu horreeyay mideeyay Soomaali guud ahaan intii ka deganayd Darmstadt ama Hessen ayaynu odhan karnaa oo dadka intaas tiro leeg maanta iskugu soo bannaan baxeen waxayna noqotay guul weyn waxaan ku codsanaynaa Soomaalida daawanaysa live-kan inay iyaguna sii sheer gareeyaan si ay u gaadho Soomaalida kale ee ku dhaqan guud ahaan Hessen Soomaali maanta waxay muujisay quwadooda waxay muujiyeen tiradooda iyo inta ay leeyihiin iyo sida ay ugu heelan yihiin inay meel walba isku duubnay ay uga soo baxaan xuquuqdoodana ay runtii ay ku soo ceshtaan ama ay ku xislaan waxaan in yar hadda u jirnaa Regieren Presidium ama goobta dawladda Darmstadt ay degan tahay iyada oo muuqa iyo tirada Soomaalida intaas leeg ay hadda ku sii jeedaan Regieren Presidium waxaanan idinla soconaynaa ilaa iyo saacaddu markay tahay kowda waan hawadu ka bixi doono laakiinse intaas waqtiga intaan la gaadhin waxaan idinka faa'iidaynaynaa inaan si live idinku soo tabinno mudaharaadkan Soomaaliyeed ee maanta dadkii ugu fara badnaa ay ka soo qayb qaateen Somali Community Service-na uu ku guulaystay inuu maanta soo tabiyo waxayna ahayd arrin aad iyo aad loo bogaadiyey arrin aysan Soomaalidu filanayn laakiin ku noqday lama filaanayn in Soomaalidu ay mar qura baraarugi karto oo ay hal mid noqon karto mar labaad Soomaalida faraha badan ay ku jirta baraha bulshada waxay ku codsanaynaa inay live-ka sii tabiyaan ay share sii dhahaan si in kalena ay sii daawato waayo waxay baraarug u noqon doontaa Soomaalida kale degan Jarmalka magaalooyin ka mid ah oo aan runtii tiraynta leegaan ku soo bannaan bixin oo aanan dhacsan xaqooda oo aanan muujin Soomaalinimadooda iyo inay quwad leeyihiin oo istaagi karaan inay wax badan ka beddelaan xuquuqaha Soomaalidu ay ku leedahay guud ahaan Yurub iyadoo waddamada Yurub qaar ka mid ah ay ka bilaabantay in Soomaalida xaqooda lagu tunto waana run arrin aad loogu farxay waxa kale oo iyaguna barbar socda oo mudaharaadka la socda ciidamada booliska oo iyaguna ammaanka ilaalinaya dadweynaha live-ka noo daawanaya waxaan mar labaad ka codsanaynaa inay sii gudbiyaan sii sheergareeyaan waa bartamaha magaalada Darmstadt Luisenplatz oo hadda dadku ay soo gaadheen waxayna dadku hadda ku sii socdaan Regieren Presidium Regieren Presidium waa daartaas weyn oo ay degan tahay dawladda Darmstadt waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa Majai Live bahda saxaafadda iyaduna toos u duubaysa barnaamijkan
oo dad badan oo Soomaali ay maanta isugu soo bannaan baxeen waxa dadku ay hadda ku dhow yihiin goobta loo yaqaan Regier Presidium oo ku taal fagaaraha weyn ee Louisenplatz oo runtii ay ku mudaharaadi doonaan goobta ay dawladdu ka degan tahay magaalada Darmstadt fadlan dadka baraha bulshada nagala xiriiraya ee barta Facebook waxaan ku codsanaynaa inay sii share gareeyaan waxa iyaduna ila taagan gabar suxufiyada oo wax badan ka soo shaqeysay saxaafadda Soomaaliya waa Kaltuun Fartuun oo wax badan ka soo shaqeynaysay saxaafadda magaalada Muqdisho Fartuun ayaa wax yar ila daadihin doonta barnaamijka Fartuun say kula tahay maanta live-kan iyo dadka Soomaalida inta leeg ay isku soo bannaan baxay aad u mahadsan tahay daahir sida wanaagsan oo howlkarnimada leh iyo Soomaalinimada aad uga qayb qaadatay mudaharaadkan maanta iyo sida shacabka Soomaaliyeed u la wadaagayso waa kaaga mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado dadka Soomaaliyeed ee maanta isku soo baxay wadada Soomaalinimadooda la aqoonsanayn oo dhanka sharciyada dhibka haysto maadaama ay wadankan muddo badan ku noolaayeen marka waxay rabaan inay dadka kale wadankan ku nool la wadaagaan si ay shucuurtooda soo bandhigaan si ay wax badan u helaan dhanka dawladda marka aad iyo aadan kaaga mahadcelinayaa qaabka aad u daadaheynaysid shacabka Soomaaliyeed waxa ka codsanaynaa meel walba joogaan inay sii share gareeyaan aad iyo aad u mahadsantahay Kaltuunay maanta waxa isku soo baraanbaxay dad aan la filinayn tirada intaas la eg ee Soomaaliya dadku kuma aysan tashan inay imaanayaan haddana waxay ku yimaadeen tiro aad u fara badan ma ku muuqataa inay xoogoodii iyo quwadoodii maanta ay muujiyeen aad iyo aad u mahadsantahay daahiro way ii muuqataa sababtoo ah hadda meeshii ugu horreysay la tagay waxaan filayaa inay dheen codsigiina waa ka soo jawaabaynaa maadaama ay meelo kale sii dhiman yihiin dadka waa inay socdaan maanta waqti fara badan dad shaqooyinkooda ka soo tagay dad caruurahooda soo watay sidaa darteed waa dadka inay hore u socdaan oo maxay tahay wixii xaqooda ah ay soo bandhigaan insha Allah maxay ahayto intana way ka sii badan doontaa mudaharaadka waxaan leeyahay Soomaalida ku nool dalka Jarmal gaar ahaan gobolka Heesan waa inay isku soo baxaan mar walba shucuurtooda muujiyaan si ay uga qayb galaan mudaharaadka maanta meesha lagu qabanayo waxa ka codsanayaa dadka Facebook ku jira intii maqlaysan inay sii share gareeyaan Fartuun ay wax badan waxaad ka shaqayn jirtay idaacadaha Muqdisho oo si weyn lagaaga yaqeen maanta adoo toos ila dahdahaynaya ama aan toos u soo gudbinayno barnaamijkan ballaaran ee Soomaalidu ay iskugu timid wacyigelinta bal ka waran iyo markii baraha bulshada dadka Soomaaliyeed si toos ah looga hadlay oo looga codsaday inay ka soo qayb qaataan soo kuma muuqato inay tiro fiican ku yimaadeen oo awal aan 30 qof wax ka badan gobolka Heesan marka la mudaharaaday aysan isku yimaadeen laakiin maanta 100 ilaa 200 ilaa 300 qof dad gaaray ay isku soo bannaan baxeen oo haddana ay hortaageen Regier Presidium kuwa kalena ay soo socdaan oo luuqyada iyo wadooyinka magaalada Darmstadt ay Soomaali qabsatay maanta والله داير عادي هذا أمها الصنتهاي فعلا في عنه هالكن صومالي كسمين ما أنت مركي ميديا هلا قلها هذلي قاطة فيسبوك برنامجية كلام يلك اللي سيموسية وحن في العيا وحي عبور لها وحي ضد هذا إنه يسقط بحين ما شاء الله إنتني إنك بدن ولسه صعدان ما دام ومدهرات كوقت بدن هذا النور بمية هاي ساعد وجينا لغد البكرة تيجي دونا إن شاء الله واحد سمين دونا كل يوم كسي بلارن isku xirka dadka si looga shaqeeyo jiilka hadda soo koraya caqabadaha haysta iyo caruurta halkan lagu dhalana waxa kamid ah ayadoo aqoonsiyadii loo diiday oo la yiri Soomaalinimadiina ma aqoonsanin Soomaalinimadiina soo cadeeyay sababtoo ah dad badan oo Soomaali ahayn inay kaarar Soomaaliyeed kula wataan inay qaxooti ahaan isku dhiibayaan ayagoo kaarar wataan marka taa darteed waxa la rabaa in maxay ahayto dadka Soomaaliyeed ay shucuurtooda muujiyaan ay isku soo baxaan si oo uga qayb qaataan mudaharaadkan maadaama hadda meesha koowaad ay codsiga geysteen laga aqbalay oo liir codsigiina waa ka soo jawaabi doonaa haddana ay tahay qaybta labaad meelo badan inay imaan doonaan insha Allah maxay ahayd aad iyo aad u mahadsan yihiin qaban qaadiyay Fartuunay xasuusin arrinka laga mudaharaadayo waa laba qaybood qayb waa waxa weeye caruurta yaryar ee ku dhalata wadankan Jarmalka oo inta badan aan Soomaalinimadooda aan la qorin ama loogu qorin sharciyada ee la yiraahdo lama yaqaan ama unbekannt laga qoro iyo waliba baasaboorka Soomaaliga qof baasaboorka Jarmalka qofku markuu rabo inuu xireysto
oo runtii ay ka saaran tahay gobolkan heesan guud ahaan waxa la yidhaahdo einbürgerung blockad ama aan loo ogolayn inuu noqdo qof Jarmal ah markaas labadaas waa labada runtii sida xoogga leh dhibaatada ugu haysta dadka Soomaaliyeed oo la rabo in la jibiyo fiican daahiro maadaama maxay ahayd labada arrinba maanta meeshan loo soo banaanbaxay hadday ahaan lahayd dhanka carruurtii hadday ahaan lahayd dhanka dadka waaweyn maxay ahayd maanta kama maqna carruur haween dad da'a maxay ahayd dad waayeel ah kulli waa la isku soo baxay waxaa filayaa in guryaha lagu harin daamishtaad badan laga soo dhigay aniga hadda magaalo fogaan ka imaaday laba basan soo raacay si aan mudaharaadka uga soo qayb galo dadkaana waa dad ila midan maadaama ay ayaga iyo carruurtooda ku soo baxeen si ay mudaharaadka uga qayb galaan marka waxaa ku gubaabin lahaa in hawsha halkaa laga sii wado insha allah ayna gaari doonaan waxa ay sanayaan guusha waxa waaye ayada uma timaado aaminsanahay marka insha allah daahir waa ku mahadsantahay adigana daadiinta iyo tobinta aad dadka la qaybsatay bilahi tawfiiq halkaas uga aad iyo aad baa u mahadsantahay taasi waxay ahayd fartuun oo ah weriye Soomaaliyeed oo idaacadaha Soomaaliya ee magaalada Muqdisho si weyn looga yaqaan intii muddo ahayna hadda nagu nool magaalada Darmstadt kasoo jira weriyaal fara badan oo kale oo iyaguna meeshaan jooga maanta oo iyaguna duubay waxa la bilaabay hadda khudbadihii oo lagu horqabtay Regerum Presidiumka waxaan la socodsiinaynaa ilaa 2da galabnimo inaan toos la socodsiin doono inta badan waxyaabaha ka dhacaya iyo mudaharaadka sida uu dhacayo waana isqaab anagu aan isxilqaanay baada saxaafadda guud ahaan ee magaalada Darmstadt iyo Soomaaliya intii ka timidba ay runtii nagala qayb qaadanayaan oo inala daadihinayaan waxaana hadda dhow in la bilaabo oo si toos ah loo soo gudbiyo khudbadihii kala duwan waxaa xagta ila taagan xaawo ayaa ila taagan iyaduna bal aanu ogaano sida ay shucuurteeda maanta tahay xaawo ku soo dhawow بسم الله وقدوا أولا وحان أباهنا هاي ذلك جرمال كان جوغا مجدي وحاو وحان أباهنا هاي حقا عن كلنا جرمال كان ما دام الصوماليين ما أقول سنين للي هاي شرعيري جبنو غلق الشنايو مركزات الأجميرة ما صوبحنا إن شاء الله وقتها هذه sida aad maqlaysaan qadka Facebook ee tooska iyo baraha bulshada inta laga xiriiraysa waxaan wali ku guda jirnaa mudaharaadkii ballaarnaa ee ka socday magaalada Darmstadt ee gobolka Hessen guud ahaan la iskaga yimid oo aan daadahaynayno ilaa saacaddu markay tahay 1da oo si live aan igu ballan qaadnay hore inaan idinku soo tabinayn dad fara badan baa iyaguna si toos qadka ugu jira waxay filayaan runtii wax weyn in
dadka Soomaaliyeed guud ahaan maanta ay qaadayaan heestaas waxay ahayd heestii Soomaali tooso oo dadka Soomaaliyeed lagu baraarujinayay guud ahaan dadka heesan ee maanta isku yimiday mudaharaadkan aadka iyo aadka u ballaaran ee dadka aadka u farbadan ay ka soo qaateen runtii ilaa kowda galabnimo toos ayaad ahaanaysaan oo waa inaga xaqabtareynaa sida uu dhacayo mudaharaadka maanta ka socda magaalada Darmstadt live-ka laga yahay oo saddex urur ay isku baahayeen ka qayb qaataan isku keenaan dadka Soomaaliyeed oo inta badan aan tiro badan ku imaan jirin mudaharaadada iyo marka xaqooda ay raadsanayaan beelka haystana horaha soo maraan ilmahana horaha soo maraan dadka waaweyn gadaal iyo iyaga gadaal ilmaha hormarsiiya kuwa tabeelka haystana hormarsiiya intiraaf tartiib dadka boorarka heesta soo hormaraan dadka boorarka heesta ciyaalka kiindhabaagan gooriha maraan dadka kaleetana gadaala soo maraan hala kala dambe hal ismaamul daartan waa daarta Regirum Presidium ee laga maamulo magaalada Darmstadt oo la rabo Soomaalidu gebi ahaanba inay hortagto oo ay si ay u muujiyaan farbadnidooda iyo xuquuqdooda ay raadsanayaan dad badan baa weli soo qulqulaya oo ku maqan luqyada jarmal macaangeysano homaantana waxaa bilaabmay buraanburadii jarmal macaangeysano homaantanaga kure waxaana garaneynina hangabano ugu qortay Soomaali garan maayo macaad kasta noogu qortay masayna naga kudo gaarigaas taksiga loo baneeyo siduu u dhaafo meesha fadlan
meeshuu nii banaynaya way fiicanta taasna walaalayaal aan isku soo dhawaada mar labaad dadweynaha toos noogala xiriiraya baraha bulshada waxaan ka codsanaynaa inay sii sheergareeyaan ilaa 1 saacaddu markay tahay toos baad ahaanaysaan tar iyo saakay saacaddu markay ay 10 subaxnimo toos ayaan ugu jirnay khadka oo toos u soo tabinaynay barnaamijka ballaaran ee maanta aan ugu talagalnay annagoo baraha bulshada si toosa idinku ballan qaadnay inaanu idinka xaqabtirno barnaamijka weyn ee ka socday magaalada Darmstadt hadda waxaa noo harsan muddo gaaban kadib waxaan filaynaa inaanu khadka ka baxno maadaama dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay isku hor yimaadeen regeerna presidium bay isku hor yimaadeen waxayna u muuqataa Soomaalidu maanta inay garteen dantooda intii badnayd oo ay isku soo bannaan baxeen xishooda meel walba waa ku dayacan lahay meel walba lagu baabi'iyaa adduunka waxaan ka dhaxnay wacyigelin xoog leh ayaa socota magaalada Darmstadt kuyuujarkeedu ugu soo talagasheen qofkaan isqaymayna weligiis qiimo heli maayo safka kale u dhowaada rafiirumka u dhowaada ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa isla weyniga iska daaya adigoo sidaa u labisan haddana hasna isii weynaada isla weyni ilaahay ubbuu u sugnaaday ismaqla isqadariya safka isla gala dadka cusub ee aan luqadda jarmalka ku hadlaynin biya koolan ha dhahaano dadka luqadda yimaada adeerkaanun ha dhahaano dhaqashirkayn ha dhahaano ilaahay kacabta waad kala leedihin hadalka qofkii cusub ee waddanka ku cusub biya koolan waa kelmad sahlan kelmaddaas kaliya ha qaado kuwa kalna kelmadaha kale laga rabaa insha allah ku dhawaada maxaa u kala fogtihiin ma kala cabsanaysi qofnaaka sharciiyo wax u raagsanaya meeshaan arroobtii baa looga imaanaya labis waxa waay afkiina goosta afkiina kala dambee qofkiin afka kala fura afkataa kala furi weyni waxaa helaysin mala dadweynaha baraha bulshada lagala xiriiraya ee dheer iyo saaka u dhabaradaega inay masaawadaan waxay noo dhiman wax qadar ka yar 20 daqiiqo kadib hawada ayaan ka baxaynaa maadaama uu dhow yahay mudaharaadka dhammaadkiisii oo hadda ay dadku isku yimaadeen regeeran presidium waxaana la filayaa goordhow in ay u soo baxaan madaxda regeeran presidium iyadoo dadkaas Soomaaliyeed intooda badanna ay u harsan tahay 2 saac iyo labada mudaharaadaan ilaa labada iyo badh idhaahdo waxaan ka baxaynaa dadka qadar 20 daqiiqo kadib inaan dadka ka baxno Via Polen! Via Polen! Via Polen! Via Polen! Via Polen, Gerechtigkeit! Via Polen, Gerechtigkeit! Via Polen, Anerkennung! Via Polen, anerkennen! 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 Via Polen, Gerechtigkeit! Via Polen, anerkennen! Via Polen, Gerechtigkeit!
daawadayaal barnaamijkii tan iyo saakay saacaddu markay ahayd 10kii aanu si toosa u soo daadihinaynay laga bilaabo waxaa hadda nala taagan mid ka mid a dhallinyarada ugu firfircoon magaalada Darmstadt oo isaguna ka qayb qaadanayay mudaharaadka kana mid a dadka soo qabanqaabiyey isaguna oo kaalin weyn ka soo qayb qaatay bal maxaad nooga sheegi kartaa sida maanta mudaharaadka jawigiisa iyo guusha uu ku dhammaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan walaalkaa sheegi karaa mudaharaadka maanta mudaharad weyn buu ahaa Soomaali badan baa ka soo qayb gashay waxaan ka bilownay Islooska waxaan tagnay meesha oo la yiraahdo Islaamka Buuga halkaas oo aan xirmay oo la mari waayay aan ugu garansaan ilaa saacan taagnin kadib waxay noo sheegeen la aqbalay garansaan xabashooyin ayna sii baxaan hadda waxaan hormaarinay meesha magaalada waan ku mudaharaadna يوم نصبحان وواحد زين إن شاء الله نلا هبلان مركب مدرات ما تنفع مدرات نادي آدي ضعيفها وحن بحصل يا أمان السوالف اللي تسميها السيشة الجريان وإلو دوام ولا له سياسة أيام كتير يا مان bal ka waran jawiga mudaharaadka ruuxa mid si weyn looga soo shaqeeyay mid si weyn looga soo shaqeeyay waxa ka soo shaqeeyay ururka Soomaali community service waxa kale oo isaguna meesha taagan Axmed Jaamac oo isagu ka mid ah qabanqaabiyayaashii dadka sida weyn u soo qabanqaabiyay mudaharaadkan sida tooska oo xalay oo dhan ku mashquulsanaa in uu isaguna xalay oo dhan wuxuu ku mashquulsanaa bal inuu soo qabanqaabiyo mudaharaadka Axmed oo ka sheekay mudaharaadka maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا داهر مداراتك ولا لو حصل قابي في الميرة دامشت وكاهي حميك معي مركا فرانتي آدي آدي قصومي فرانتي آدي شغلان هاي وقت بقول آدي قصومي شو سمعنا آدي نقص بحضي فرانتي مداراتك ومدارات آدي سلمي بها كنتي كستان شهرين dadka xoogiisaan wali ay laga maqan yihiin haddana yirkiisa waqti miisaan lagu soo baxay waxaantii meelay aan soo marnay ama meeshii aan soo wareegnay waxaantii si fiican baa lagu qaabilay sida islaamka doo kale iyo meelaha dalashada qaatay insha Allah billahi waxaan jeclahay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay maqlayaan codsiga maqlayaan inuu waddanka Jarmalka inaynu raadsano xaqeena وروح عنينه كل اللي ناكل دي وحق مظاهرات هل نوقف أنا كستوى مظاهرات إنه حق يعني اللي قلت شو سنين وين داونا وحن شاء الله يبشر الصومالي aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Axmed Jaamac oo ka mid ah qabanqaabiyaasha sida weyn u soo qabanqaabiyay mudaharaadkaas mar labaad dadka barnaamijyada soo tooska maanta ilaa 10kii nagala xiriirayay waxaanu qadar daqiiqada dabadeed 10 daqiiqo dabadeed soo gabagabayn doonaa live-kaan ku jirno waqtan iyo saakay 10kii subaxnimo aan sida tooska idinku soo tabinaynay iyadoo qaar ka mid ah Soomaalida wareysano laakiin lama hubo kulli in sida uu ku dambeyn doono magaalada ama gudoomiyaha magaalada uu joogo aan erkeenu isku daynaa inaan mudane Kamaal Gerechtigkeit
iyo bool ka sheekay maanta mudaharaadku soo u dhacay والله مدارات كمان waxa weeye dhibaataduna waxay tahay Gerechtigkeit 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 Anerkennung 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 Gerechtigkeit 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 Anerkennung Anerkennung Gerechtigkeit 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 Anerkennung Anerkennung أورجي المية النسكا وحي كرتينا قرلادي الرجل واحد بسنتي أورجي ووينا عدك ووينا أورجي بيا بولن بيا بولن أنا كان بيا بولن كريستيكا بيا بولن أنا كان بيا بولن وصغيرشتا أنا بولن كريستيكا بيا بولن وصغيرشتا بيا بولن أنا كان بيا بولن بيا بان كريستيكا بيا بان كريستيكا بيا بولن وصغيرشتا بيا بولن أنا كان Wir wollen Gerechtigkeit! 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 بيا بولن Gerechtigkeit! Wir wollen 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 Gerechtigkeit! بيا بولن بيا بولن بيا بولن بيا بولن Gerechtigkeit! Wir wollen 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 Gerechtigkeit! Sehr gut, hast du gut gemacht. Soomaalida waa inaa hadashaan codkiina waa muhiim aynu dhahay waa aamusantihiin weli maxaa barnaamijkii taar iyo saaka 10kii subaxnimo aynu soo wadnay mudane iyo mudanayaal dadweynaha nagala xiriiraya baraha bulshada waxaanu ku soo gabagabeynaynaa intaa in leeg waxaynu filaynaa inaynu mar labaad isugu nimaadno mudaharaadkan lamida waanu soo daadahaynaynay saaka ilaa iyo 10kii ayaanu hadda soo gabagabeynaynaa qadar daqiiqada gudaheed iyada oo Soomaalidu ay hadda xoogga mudaharaadkiisii uu dhammaaday oo ay isku soo banaanbaxeen dhinaca Regiron Presidium oo aanu toos idinku soo taminaynay taar iyo saakay waxaan gebi ahaanba idinku hambalyeynaa Soomaali guud ahaan inta joogta waddanka Jarmalka iyo dalalka Yurub in sidaas oo kale iyaguna ay u raadsadaan xaqooda oo ay u dhacsadaan waayo midnimadu muhiimka iyo quwadda ay leedahay waad aragtaan waxaan mar labaad idinku mahad celinaynaa daawashada aadna daawanayseen teer iyo saakay saacaddu markay ahayd 10kii waxaan ugu dambayn wareysanaynaa mid ka mid ah dhalinyarada oo isaguna mudaharaadka ka qayb qaatay waan weydiinaynaa shucuurtooda ugu dambaysa السلام عليكم magacayga anoo ku bilaabay Cabdiqaadir Bashiir waxaan joognaa magaalada Darmstadt galbeedka waddanka Germany waxaanu ku mudaharaadnaa maanta anagoo caawinna dhalashooyinka carruurta sidoo kale baasaboorka oo lagu qoray angaabo taas oo macnaheedu tahay in qofku yahay inuu la garanayo meesha ku yimi Soomaali inuu yahay inay kale macna Soomaali inuu yahay cadeen aan la garanayn waxaan maanta waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul ay ku dhimaan doonto insha Allah daarna aad u maasay السلام عليكم خير واسف عادي aad buu mahadsan yahay waxaan haynaa isagana mid ka mid ah dhalinyarada oo isaguna shucuurtiisa bal muujinaya arrimo badan oo Soomaalida xuquuqdooda ka maqan oo ay ka mid tahay inaan yacni Soomaalidu xuquuqdii ay waddanka ku haydaan ka helin aad baan ugu haweenka isaga timi daafaha Jarmalka ee ku muujinaya dareenkooda shucuurtooda iyo midnimadooda isku xiran waxaan ka codsanaynaa xuquuqda ka maqan Soomaalida ay yacni u fulisay dhammaan
shaqadii ay maanta lahaayeen way ka yimaadeen ma shaqaynaan waxa laga cabanaya xukuumadda dadkoo ku badan sharciyo waaweyn qaadan sharciyadii rabta lagu adkeeyey iyadoo dhalashadii waddanka la bixinayn ciyaalka waddanka ku dhasho aan la aqoonsan oo la siina waxyaabo xuquuq badan oo muwaadiniinta kale ama waddamada kale ka yimaada ay leeyihiin ayaan soomaalida la siin laakiin dhammaantood suuliyiin oo laga cabanaya إن شاء الله waxaan leeyahay tarjiinna inaan waxyaabaha naga maqan aan isla ugu dhaqsaa badan ku heli doono dowladda Soomaaliya aad baad salaamay mar labaad dadweynaha baraha bulshada sida tooska taaka ilaa iyo teer iyo 10kii si toos ah noogala socday oo aan live soo tabinaynay barnaamijkan oo maanta aan si weyn inaga qabtarnay waxaan bal markaan wareysanaynaa mid kamid ah qabanqaabiyeyaasha ururada magaalada Darmstadt gabadha ugu ismahaan oo ah gabadha ugu kartida badan oo dhaqdhaqaaqeedu aad u badan yahay ismahaan baan ku soo dhawow seed u aragtaa bal maanta qabanqaabada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم waxaan arkaa maanta wax aad u wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaalida oo aad u soo wada baxday maanta iyadoo xaqoodii ay u doodayaan wax aad loogu farxo waayo dhibaato badan ayaa dhulkan naga haysata Soomaalidii waxay jirta arrin aad u badan oo ah in Soomaalidii loo aqoonsan kari waayo in Soomaalinimadoodii oo loogu qoray baasaboorradii inay maxaa la yiraahdaa ayaga sheegteen kaliya Soomaali inay yihiin taasoo sababtay in shaqo la'aan abi miis in aqoonsigii uu abi abuya loo aqoonsanin in maxaa la caruurtii ay waddankaneed inay ku dhashteen ay dhalasho aan la siinaynin in maxaa la yiraahdaa shaqooyinka sharafta leh ee waaweyn Soomaalida aan loo ogolaan inay ka shaqeystaan waayo maxaa la yiraahdaa in loo aqoonsanin inay Soomaalinimadooda sidaas darteed ayaa maanta isugu soo baxnay waxaan rajaynayaa guri inaan gaari doono guri laguma harin caruur aabbo hooyo صغير كبير كل وصفة دقائق مانتا كي شرع الله كي عن شرع الله بوصفة دقائق مانتا إلا يعطي كل ناس أيان قارني هير وعن مرينا إنه ميرا وين اعترافني وعن اعترافنا دبادلنا وغبانا كي قبلنا بلمنا للسيو إن شاء الله تعالى آدي أبو فرح سنة وعن أمهات نقايا ضدي سوق القادية كسو شقيي أسو بحي أتاقن دانتا صومالي إلهي وعن كبريا صومالي آدي وماتي هاري ساكي si toos ah ayaan u soo tabinaynay ilaa iyo 10kii barnaamij aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa oo u muuqda in lagu guuleystay maanta Haarie Saakay barnaamijkan si toos ah u soo gudbinaynay anaga qudhadeedu masalan intarada inta la eegay soo baxay Soomaalidu guul weyn bay u ahayd waxa iyadana laga taagan aqoon-yahanada kamid ah magaalada Darmstadt oo fara badan iyo odayadii guud ahaan iyagana shucuurtoodan maanta weydiinaynaa sida ay u arkaan Soomaalidu maanta waxay muujiyeen kalsoonida isku duubnaan aad u weyn ayay muujiyeen annagu waxaan nahay Soomaali waxaan ka hadlaynaa dhibkanaga waxaan nahay dadkii muddo dheer ku noolaa halkan waxaanu taageeraynaa walaalaha Soomaaliyeed sideedoodii iyo dhalashadooda la damcay in dib looga tuuro laakiin maanta way kaceen way gacmaha isqabsadeen Soomaali meesha ay joogtayba waad aragtaan mudaharaadka ka socda waad u jeedaan waxa meesha ka socda xaqoodii bay doonanayaan wax lagu farxo weeye intan keliya ma aha wax walba iyo wixii ka maqan ayay isku duubni ku raadsanayaan Soomaalidu ha noolaato ha israacdo ha walaalowdo xaqoodana way helayaan إن شاء الله وسوماليدا قار بدن بaa nala taagan inta kuma koobi karno ma dhamaanayaan dhalinyaradu aad bay u farbadayeen maanta isku soo baxday boqolaal bay leeyihiin saan ii sheegaynay saaka ilaa iyo wadooyinka waxa hadda ila taagan mid kamid ah dhalinyarada firfircoon ee Bashiir ee magaalada Darmstadt isaguna ku nool bal wuxuu nooga warramayaa guusha maanta la gaadhay iyo himilada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبل السلام يا سويت الصلاة المكسة بشير من السعودي كم دربي وحن كسرنا هاي الجامعة الرحمن أسكا وحن مدهرات كم مساب سنة إن نموت الصومال المدة يلا ونلاقي صدق إن ما نتي وحلي هذا عن جابان ولا كقاله سي أن حقوق لنا قلنا كنا قحوتيجا ودك كنول وحن نحن قومية وجري أحسن وحول بلغة سميستو وحن كاتب من ملاانتا
maanta wax fiican baan qabanay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii wadno aan sii joogtayno ilaa aanu hamigayga ka gaarayno insha Allah bidni kariim waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysan doono haddii aan balamaan haysanaa waan sii wada doonaa albaabka hadda aragtaan wiilal kama furin laakiin ilaa nala ka fara caawa ha gaarto waan joogaynaa danahayaga iyo iskoolada iyo waxbarashada iyo shaqooyinkayga waxaan u soo jirnay inaan danteeda gaarno aad baan idiin salaamayaa daahir naadan aad baa u mahadsan tahay كمال بعد رادنا كمال marka aan isku soo dhinaca isku soo jeesto bisa sidii ninkii hore khudbada aniga waa aqrinaa markaas afdho jarano ku aqrinaa marka fasinaan daraftiin waa nafisina insha Allah Hier so viele meiner Landsleute und weitere engagierte und Interesseleute begrüßen zu können. Die Demonstrationen kommen nicht nur aus Deutschland und Umgebung, sondern auch von Südbayern, Karlsruhe und weiter. Wir alle kennen das große Problem der Einwanderer. Sind bewusst dazu und die Schwierigkeiten damit. barnaamijka waan soo gabagabaynaynaa tan iyo saaka 10kii socday aad baan idinku mahadnaqaynaa intiina daawanaysay intiina soo dhaweysay intii runtii Soomaalnimada muujisay aad tan iyo mar kale oo aan ku kulmi doonaa hawada iyo barnaamijyo noocaan oo kala waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo amaano Allah